أريا حادي تري ما بكون دورك النبوك حاد في رسالة ما تقول دورك هالسبيس daawadayaal kusoo dhawaada saxafi filim su-aalaaba idinla wadaagta dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee arrimaha bollywoodka aktarada ka howlgala ee dalkaasi hindiya barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa aktarka caanka ee Aditya Pancholi ee soomaaliduna ay u taqaano Shankar ee gobolada qaarkoodna looga yaqaano Indapalil. Haddaba Aditya Pancholi ayaa sanadku markuu 2015 waxa uu sameeyay dhacdo aad u foolxumay. Dhacdadaasi waxay ahayd kadib markii Aditya Pancholi uu tagay meel kalaaba oo uu waqtigiisa ku qaadanayay ugu dambeyn isaga iyo DJ-gii kalaabkaasi uu xoogaa murana dhex maray. ugu dambeynna Aditya Pancholi waxa uu go'aan ku qaatay hadiisan DJ-ga bedelin heesta markaasi ee saarnayd in kalaabka uu gacan qaadi doono DJ-ga. waa madax adeega Aditya Pancholi goobtii uu ku sugnaa DJ-gaas ayuu ugu tagay, si xun ayuu u garaacay, afarta koone ayuu jajabiyay, dhaawacyo aad u xun oo halis ayaa gaaray DJ-gaasi. booliska ayaa qabtay isla markiiba Aditya Pancholi waxayna u taxaabeen xabsiga inkastoo subaxii waaga markii uu baryay ee damaanad lagu soo sii daayay gaaraysa 50,000 oo Indian rupees oo banaanka uu ku yimid. kiiskaasi muddo ayuu soo jiitamayay, muddadii uu soo jiitamayay ugu dambeyn maanta ayaa maxkamadda la isla tagay oo Aditya Pancholi maxkamadda la saaray. haddaba maxkamaddu maxaa ka soo baxay? agtaro badan ayaa dhibaato u geystay dad shacaba amaba goobo ganacsi oo ay galaan. sidii oo kale ayaa aktarkan waxaa markhaati u noqday u markhaati kacayaan raacday askarta kamid ahayd soo qabtay oo sheegay waqtigii ay soo qabanayeen in controlka Aditya Pancholi uusan fadhin oo uu aad u cabsanaa, taasina ay sababtay in gacan qaadka uu dhaco. sidaa daraadeedna kiiskan waxa uu ku soo aruurayaa bay leeyihiin waa miir daboolna amaba qofkan miirkiisa ma joogin. inkastoo markii hore oo la xirayay amaba xabsiga la geynayay habeenkii uu dilka geystay oo ninkan dhaawacay lagu qabtay qodobka 324 ee xeerka ciqaabta dalkaasi India oo dhigaya gacan qaad dhaawac u geysasho halis ah qof kale. sidoo kale qodobkii lagu xiray wuxuu ahaa 504 xadgudub awood sheegaso qof uu ka awood sareeyo marka ay noqoto dhanka bulshada oo gacan qaadkaasi sameeyay. taas ayaa adkaysay Aditya Pancholi waqtigaasi inuu habeenka xabsiga seexdo. hayeeshee hadda waxaad moodaa markii maxkamadda looga yeeray maanta Aditya Pancholi in ay noqotay labadii walaala ninkii magac lahaa weyn oo Aditya Pancholi kiiskii caddeema saxa loo waayay oo la sheegay in uu ahaa shakhsi sarqaansan aan iskontarooli karin, aan weliba xitaa waxa uu ku hadlay iyo waxa uu sameynayo midnaba aan war u haynin. taasina ay sababtay inuu gacan qaadkaasi sameeyo. sidaa daraadeedna waa la sii daayay. waqtigii hore oo la sii daanay 50,000 oo rubi ayaa lagu sii daayay apiilka hore uu ku qaatay, inkastoo maanta aysan maxkamaddu shaacin lacagta aktarkan lagu sii daynaya amaba kiiska loo haysto. waxaad moodaa in uu yahay kiis faragel jiro, hoos baa loo dhaqaa uu kiiskan yahay. isaga iyo ninka dhaawaca uu geystay si hoose u wada hadleen oo halkaasi xaalo mastuur lagu dhameynaya wixii markaasi maxkamadda ay u qoonteynaysan Aditya Pancholi uu bixiyo oo uu ku raali galiyay shakhsigaasi uu gacan qaadka u geystay. Aditya Pancholi dhacdooyin la yaab leh ayaa soo maray. isaga iyo Kangana Ranaut 4 sano ayay xiriir lahaayeen. ugu dambeynna waxay kusoo gabagabowday Kangana Ranaut waatay sheegtay in lacag badan ka dhunsaday oo si xun oo la dhaqmay iyadoo cabsan uu ka faa'iideystay, kadibna banaanka uu kusoo tuuray. dacwadaasina ugu dambeyn Aditya Pancholi cid way ku waday. sidoo kale wiilka uu dhalay ee Suraj Pancholi waad ogtihiin gabadhii Jia Khan ee atirishada ahayd ee la sheegay in ay isdadashay kiiskeeda ilaa haatan waa u taagan yahay. isaga ayaa loo haystaa, inkastoo kiiskaasi labada qayba ay ku kala qaybsan dadka baarayaasha ka dhanna waxay leeyihiin iyada ayaa isdashay, dhanna waxay leeyihiin qofka ugu dambeeyay ee ka dambeeyay hawshaas inay Jia Khan samaysay. isaga ayuu saana ku qasbay oo waxaa la sheegay Jia Khan intaysan geeriyoon kahor inay uur lahayd. kiisaska noocan oo kale waa soo maraan aktarkan Aditya Pancholi. hayeeshee maanta waa uu ka badbaaday, maxkamadduna waa ay fasaxday. daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay Aditya Pancholi oo maxkamadda looga yeeray kiiskii 2015 ka dhacay ee feerkii uu la dhacay ninkii DJ-ga ka kalaabkii waqtigaas uu khamriga ka cabayay oo soo gabagaboobay. daawadayaal intaas ayaan barnaamijkii kusoo okeynay halka aad ka daawanaysidna waa Saxafi Films. haddaba haddaadan ka mid ahayn asxaabtii hore ugu xirnayd Saxafi Films barnaamijkan aad daawanayso like saar kadibna subscribe Saxafi Films taaba gambareelka si barnaamijyada Saxafi ka baxay joogto kugu noqdaan. fikirka aad qabtidna waxaad nagula wadaagi kartaa qaybta comments-ka Saxafi Films. inagoo isku duuban waa baada Saxafi waxaynu idinkaga tegaynaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayna daawadayaal sidaa iyo nabadgelyo.